قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز saaxiibayaal ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooran ciidamo ka tirsan booliska dalka Itoobiya oo ku dagaalamay magaalada Addis Ababa iyo qasaare ka dhashay isku dhacaasi dhaqanka iyo siyaasiyiinta gobolka bari uga soo horjeestay in siciidan oo ilaha dhaqaalaha gobolka uu ku wareejiyo shirkadda Imaaraadda kooxda Al-Sunna oo ka hortimid guddiga farsamada Galmudug saraakiil caan ah oo ka tirsan Elfu Group oo qarax lagu dilay xaaji Muuse Suudi oo weerarka ku qaaday Farmaajo xildhibaano ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland oo isku gacan qaaday iyo Mareykanka oo ciidamo hor loo diray dalka Sacuudiga hagaag haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز قلعة ميديا نيوز wararka ka imaanaya magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa dalka Itoobiya ay isku rasaasayeen gudaha Addis Ababa askartan ayaa ka wada tirsan booliska federaalka waxaana israsaaseyntaasi ka dhalatay qasaare dhimasho dhaawac leh sidoo kale waxa gudaha magaaladaasi la soo sheegay inay xalay ka dhaceen rabshado u dhaxeeyay qoomiyadaha Amxaarada iyo ciidamada booliska sidoo kale waxa gudaha magaaladaasi la soo sheegay in xalay ay ka dhaceen rabshado xooggan oo u dhaxeeyay qoomiyadda Amxaarada iyo ciidamada booliska federaalka dalkaasi arrintan ayaa ka dambeysay kadib markii Amxaarada degta Addis Ababa ee abaabuleen banaanbaxyo looga soo horjeedo bilada nabadda la siiyay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada warar kale oo aan helnay xaqiiqdooda ayaa sheegay in ciidamadii xalay isku rasaasiyay magaalada Addis Ababa gudaheeda ay ka soo kala jeedaan qoomiyadaha Oromada iyo Amxaarada xubno ka tirsan hoggaanka dhaqanka siyaasiyiinta iyo ganacsatada gobolka bari oo shir ku yeeshay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolkaasi ayaa sheegay in si adag uga soo horjeedaan hanaanka xukuumadda Puntland ee haatan jirta ay u wajahayso arrimaha gobolka bari odayaasha ee waxgaradka gobolka bari ayaa xukuumadda dani ku eedeeyay inay cuuriyaamin ku hayso ilaha dhaqaalaha gobolka bari isla markaana ay cadaadis iyo caburin saartay bulshada ku dhaqan gobolkaasi gaar ahaan magaalada Boosaaso si aysan cabashadooda u soo bandhigin waxay xukuumaddu ku eedeeyeen odayaashan oo ka mid ah saddexda beel ee ugu awoodda badan ee gobolkaasi degta in kaabayaashii dhaqaalaha magaalada Boosaaso sida dekadda garoonka ay gacanta u gelisay xukuumadda dani shirkado shisheeye kuwaas oo aan wax shaqo ka qaban balse doonayaan inay cuuriyaamiyaan siday hadalka u dhigeen sidoo kale waxay ka hadleen odayaashan iyo siyaasiyiinta ku soo jeeda gobolka bari arrimo la xiriira guud ahaan xaaladda Puntland ee siyaasadda xukuumadda madaxweynaha ay ugu wajahayso dawladda federaalka iyo dalalka dibadda waxaan leenahay Boosaaso hal la isugu yimaado xaqeeda hal la siiyo hal lagu xisaabtamo waxa ka jira hal la isweydiiyo hadii ay la xisaabtamo dadku isla xisaabtan si horeba loo yiri dadkan wuxuu baxshaa cashuurta weey Puntland meel kale wax kama soo garaaneen waxaanu leenahay Imaaraaddan inuu haya caalamka kale wixii waxinoo qabanaya baynu ka rabnaa ilaa dawladii hore lacagteena dekada ka guranayeen haddana iridkii laga soo galaya xiran kuwa kalena inuu soo waxinoo ka qabanay sadarkaas halkaas ka muuqda madaxweynihii wayna qaabili diiday riboorkii iyo mashaariic kale korontadu ay ku jirto maxjaradu ay ku jiraan baan Imaaraadkii inoo hormarinaya haddii aan shiray oo damacnay oo niribal waraysta wayna qaabili diiday taas marka waxaynu aanu go'aansanay inaan baaq soo saaro inaan hawshaas ilaa ku haleynay dhibta ah oo curyaaminta ah oo Imaaraadu ina ku hayo inaynu baaq ka soo saaro dhulkan la iibinayo dekedan waxa weeye inagu ma iibin raalina kama nihin mana iibin karo laakiin waxba ka feero weyn baa yimaade war federaalow war waxa naga fujiya war inta ma oran karaa war hadaba naga fujiya oo waxa ka kani waa nahaystaani bahal baa jira gududan oo xoolaha halkaas ku dhiga marka dadka ka fujiya
maamulka ahlusunna ayaa si cad uga hor yimid guddiga farsamada ee doorashada galmudug ee dhowaan ay ku dhawaaqday wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya. war ka soo baxay xafiiska madaxa xukuumadda galmudug sheekh maxamed shaakir cali xasan ayaa lagu sheegay in magacaabista guddigan ay baalmaarsan tahay dastuurka dowladda soomaaliya gaar ahaan qodobada 120 iyo 121 iyo midda maamulka galmudug gaar ahaan qodobkiisa 29aad farqadiisa 4 kuwaas oo si cad uu sheegayo in galmudug ay xaq u leedahay ka tashiga aayaheeda iyo dhismaha maamulkeeda. sidoo kale sheekh maxamed shaakir ayaa sheegay in magacaabista guddigan ay baalmarsan tahay heshiiskii dhex maray ahlusunna iyo dowladda Soomaaliya 3 bishii 7 2019. sheekh shaakir ayaa sheegay in dowladda ay uga baxday xildhibaano ay u ballan qaaday dowladda kuwa oo tir ahaan gaaraya 35 mudan si xildhibaanada cusub ee loo soo dhisay maamulka ay uga mid noqdaan. ugu dambeyntii sheekh maxamed shaakir ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya inaysan dib ugu noqon qalalaasa siyaasadeed in mar kale galmudug burburto. hadalka ka soo baxay ahlusunna ayaa ku soo aadayay xilli qaar ka tirsan musharaxiinta galmudug ay ka hor yimaadeen guddiga ay magacowday wasaaradda arrimaha gudaha iyagoo sheegay in uu baalmarsan yahay dastuurka dalka u yaala. xubnahan ka tirsan musharaxiinta galmudug ayaa ka mid ah Cabdiraxmaan Odowa iyo Gamaal Kuutaale iyagoo sheegay in guddiga la magacaabay ay yihiin shaqaalihii dowladda Soomaaliya. warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dagaalyahanada al-shabaab oo qarax ku dilay saraakiil ka tirsan Elf Group. qarax oo ahaa miino ayaa waxay al-shabaab sheegteen inay ku bartilmaameedsadeen gaari cabdibilaah oo ay wateen ciidamadaasi oo ka soo ambabaxay deegaanka lambar 50 kuna soo jeeday gudaha Muqdisho. siday baahisay warbaahinta al-shabaab waxaa qaraxaasi ku dhintay ilaa 5 askari oo ay ku jiraan saraakiil sidii hadalka u dhigeen. warbaahinta al-shabaab ayaa magacyada saraakiisha ku dhintay qaraxaasi ku sheegtay Faarax Caato, Daahir Cabdulle iyo Sharmaake. weli ma jiro wax hadal oo ka soo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada dowladda oo ku aadan qasaaraha ka dhashay qaraxaasi miinay haleelay gaari cabdibilaah ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa sida gaarka u tababaray nabad sugidda Soomaaliya Elf Group. kooxda al-shabaab ayaa weeraro dhabagal ah u badan qaraxyo miina la beegsatay ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Amisom xilliyada iskaga kala gooshayaan Muqdisho iyo gobolka Shabeellada Hoose. 2 maalin ka hor ayay ahayd markii qarax sidaan oo kale wadada dhinaceeda la geliyo haleelay gaari cabdibilaah ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa danab oo marayay inta u dhaxaysa degmooyinka Afgooyi iyo Walaweyn. qaraxaasi waxa ku geeriyootay 4 askari oo ka tirsan ciidamada danab. xildhibaano ka tirsan guurtida Somaliland ayaa gacanta iskula tagay kadib markii khilaaf soo kala dhexgalay. xildhibaanadan ayaa gacan qaad isku sameeyay golaha dhexdiisa taa oo keentay in kala fadhigii golaha uu buuq dartiis u furmi waayo. xubnahan ayaa lagu kala magacaabaa Haruuse iyo Xuseen. baldageyso wax ka mid ah buuqii ka dhashay gacan qaadkooda labadani mas'uul. warbalikaadi horta maxaan kaa dhegaystaa hayga bixin anigay dhegaysta war golaan fura hadal bay kuu bixi maaye war dee fadhiiso kaasi muxuu ahaa war kan laayaa indhow huruuse maxaad uga xanaajinaysa maxaa kugu salliday isaguna buruqyada waaweyn u muujinaya golaa ku dagaalamaya hal huruuse goluu dagaal ma leh. muuse suudi yeelxuu ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa khudbad uu ka jeediyay xafladda caleemasaarka Axmed Madoobe ee magaalada Kismaayo. waxa uu sheegay in doorashadii Axmed Madoobe ay ahayd wixii la sameyn karay oo aysan filin mid ka fiican inay ka dhacdo. wuxuuna u hambaliyay Axmed Madoobe isagoo dhinaca kale dhaliil culus u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo sheegay inuusan jirin heshiis kale oo laga raadinayo. Mareykanka ayaa ciidamo dheeraad ah u diray dalka Sacuudi Carabiya. wasiirka gaashaaniga Mareykanka Mike Esper waxa uu sheegay inuu qalinku ku duugay amarka in ciidamo dheeraad ah laga howlgaliyo Sacuudi Carabiya.
ciidamadaasi oo ku hubaysnaan doona diyaaradaha dagaalka iyo hubka difaaca. wuxuu intaa ku daray in ciidamada ay Washington u dirayso Sacuudiga inay jawaab looga bixinayo khatarta gobolka soo food saartay, islamarkaana boqortooyada Sacuudi Carabiya laga ilaaliyo weerarada gardarrada ay Iiraan ku soo qaado. ciidamadan dheeraadka oo Mareykanku u diray gacansiinta boqortooyada Sacuudi Carabiya oo gaaraya 3,000 oo askari ayaa ogolaanshihiisa waxaa la bixiyay bishii hore, ayuu yiri afhayeenka Pentagon-ka. Mareykanka ayaa tan iyo bishii May sanadkan kordhisay ciidamada ka jooga gobolka iyada oo gaarsiisay 14,000 sida uu sheegay telefishinka CNN. dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa naga dalbaday taageerada dheeriga, ayuu yiri wasiirka gaashaaniga Mareykanka. daawadayaal waa naga intaa warkaad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawada subscribe channelkan Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.